السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha nagamada meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan waxa uu qayb ka yahay casharadii taxanaha inoo ahaa ee ku saabsanaa barashada Microsoft Word 2010 waana cashirkeennii saddexaad. qaybtan insha Allah waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano clipboard oo ka tirsan home tab iyo waxyaabaha laga heli karo. sida caadiga ahna afar shay ayaa ugu muhiimsan oo kala ah cut, copy, paste iyo format painter. haddaba daawade haddii ay tahay marka ugu horeyso oo soo booqato halkan, fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo dhahdo una sii sheegaysa asxaabtaada kale ee jecel barashada cilmiga computerka. muuqaalkan aad like iyo comment aad inoo siiso. waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. qaybtan loo yaqaan clipboard waxaan u baran doonaa mid afarta qayb ay ka kooban tahay. waxaan ka bilaabi doonaa qaybtan loo yaqaano copy. waa in xogtii ku qornayd ama dokumentigii oo qoraalka ahaa ee ku samaysnaa inaad ka samayso mid labaad. qaabka loo sameyn kara insha Allah baran doonaa waa saddex qaab oo fudud, bal aan tijaabino iminka. kan ugu horeeyo sadarka koowaad ee qoraalkayga ayaan rabaa inaan ka sameeyo qayb yar oo maxaa uu lahaa copy ah. haddaba haddii aad u baahan tahay copy, marka hore waxaad sameynaysaa highlight ayaad saaraysaa qoraalkaaga, kadibna waxaad taabanaysaa qaybtan ka tirsan clipboardiga ee loo yaqaano copy. hadda waxaad samaysaa inaad mid labaad ka samayso qoraalkaagii kugu qornaa sadarka koowaad. qaybtaas qoraalkaas oo dhan iminka waad copyeysay oo mid kale ayaad ka samaysay waadna wadaa. haddaba markii aad dhigaysid waxaa lagu dhigaa qaybtan loo yaqaano paste. marka paste ayaad taabanaysaa, marka kadib waxaa soo baxayo qoraalkii aad soo copyeysay ayaa iminka waxa uu kugu soo dhacay barti aad dhigatay. haddaba copyga qaabkaas waa loo sameeyaa. waxaa jira qaab kale oo copyga loo sameeyo. waxaad samayn kartaa markii aad saarto highlight, waxaad taaban kartaa muuskaaga ama laptopkaaga dhankiisa midig right click si, kadibna waxaad ka doorataa qaybta ay ku qoran tahay copy. waad aragtaa waa kan qaybta iminka qoran tahay copyey, kadibna halkan iska dhig paste leh. okay, kaasna waa qayb labaad. qayb saddexaad waa inaad isticmaasho wax loo yaqaano shortcut oo amar ah. aad saarto highlight, waxaad samaynaysaa inaad taabato control kadibna aad raaciso c. waa control iyo c. kadib iminka waad wadaa copygii, halkaana taabo marka si aad u dhigto oo aad u dhahdo paste. haddaba waxaan baranay saddex qaab ee loo sameeyo copyga. saddexda qaab waxay kala yihiin inaad marka hore marka aad saarto highlight qoraalkaagii inaad halkan copy u isticmaasho, ama inaad right click intaad siiso laptopkaaga dhanka midig aad taabato sidaasna aad ku siiso, ama in aad isticmaasho wax loo yaqaano shortcut kadibna aad isticmaasho wax loo yaqaano control plus c. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa cut. cutna waa in aad jarto qoraalkaagii isla markaana aad u guriso meel kale. tusaale had sirka koowaad markii aad la saaro cut dad isticmaalaya kan maqaska aad isticmaali kartaa oo qoraalkaas ku dhufan kartaa ka tirsan clipboardka jugsi. kadib maxaa dhacay? waxaa dhacay dhammaan qoraalkaaga wuu baaba'ay, wuxuuna diyaar u yahay inuu meel kale u guuro. haddii aad jeceshahay inaad meel kale u guurtana isla halkan paste leh taabo, kadibna waa uu soo guuro. halkan ayuu usoo guuro qoraalkaaga. marka farqiga u dhexeeya kadib copy waa in qoraalkaaga la badiyo oo qayb badan oo maxaa uu lahaayay isla asiga ah la sameeyo. kad laakiin waa qoraalka keligiis inta la jaro meel kale loo guriyo. marka boos bedelasho waa kadka in booskii qoraalka u yaal laga bedelo booska la geeyo waa cut. marka waa in la jaro dhammaan isaga oo dhan, waxba copy aas laga sameeyeen inta la qaado la jaro meel kale hadan lagu abuuro. laakiin copy waa in qoraalkaaga lagu badiyo oo waxyaabo badan oo baagaba loo sameeyo. haddana waxaan isticmaalnaa qaab labaad. qaabka labaad waxa waaye inaad isticmaasho wax loo yaqaano muuskaaga dhankiisa midig ama laptopkaaga dhankiisa midig right click si, kadibna aad ka dooro amarkaas ku qoran tahay cut. kaas taabo iminka waad aragtay inuu jarmay. haddii aad u baahan tahayna soo dhig mar kale oo paste taaba. qayb saddexaadna aad u isticmaali karto waxa loo yaqaano cutna waa inaad isticmaasho wax loo yaqaano shortcut ama amarkaasna wuxuu ku fulaa inaad dhahdo control iyo x wada taabo. kadib maxaa dhacay? qoraalkaagii iminka cut ayaa lagu dhahay. haddii aad u baahan tahay pastena kaas ayaa taabanaysaa, kadibna qoraalkaagii waa uu ku soo dhacaya. markan waxaan baranayaa qaybta loo yaqaano paste. wax kale ma markasta ayada waxay la shaqeysaa cut iyo copy. qoraalkii markasta la soo qaaday ayayna soo muujisaa.
marka bastiga marka ayadana sidaas waaye marka kad iyo koob iyo markaas ku xiran tahay wixii la soo qaado qoraal la soo guuriyo ayay meel cusub ku dhigtaa ayadana saddex qab ayaad dhigi kartaa tusaale qoraalka markii hadda aan imika soo koobiyeeyo oo aan isticmaalo kasoo qaato koobiyo kale bast marka dhahay saddex qab ayaad dhigi kartaa in aad kan taabato waa dhigi kartaa sida maatan aan sameeynay oo ka imika waan dhigay waxaan isticmaali karaa qaab kale oo ah inaan isticmaalo right click kadibna aan ka doorto wax loo yaqaan bast okay waa ka imika waan dhignay ama inaan isticmaalo wax loo yaqaan shortcut oo amar ah kadibna aan taabto control plus v waa dartay qoraalka imika inuu ku soo dhigmay marka saddex qaab ayaan baranay oo ah cut copy iyo paste iyo mid kastaba saddex qaab ee loo fulin karo qaybtan afraad ee loo yaqaan format painter waa in qoraalkaagii haddii farta iyo cabirka uu kala bedelan yahay la isku ekaysiiyo tusaale kasoo qaad sawirka ugu horeeyo kale ayaan ka bedelay farta nooceeda waxaan ka dhigay Algerian cabirkana waan ka bedelay kasoo qaad tusaale waxaan ka dhigay kasoo qaad 14 oo kale okay imika waa aragtaa marka qoraalkaygii sadarka ugu horeeyo iyo sadarada ka hooseeya inay kala duwan yihiin marka haddii aan rabo inaan isku ekaysiiyo kasoo qaad sadarka ugu horeeyo sadarka u dambeeyo kale ama qayb kamid ah qoraaladeeda isku ekaysiiyo maxaan sameynayaa qaybtan imika qoraalka aan farta ka bedelay aan hadlaad saaraya ama qaybta aad rabto markaas inaad qaybta kale u ekaysiiso ay hadlaad saaranaysaa kadibna waxaad taabanaysaa wax loo yaqaan format painter ama waad isticmaali kartaa wax loo yaqaan shortcut oo amar ah inaad isla wada taabato control shift iyo c wada qaban kartaa okay kadibna qaybta aad rabto inaad qoraalkaas u ekaysiiso ee iyadana saaraysaa hadlaad kasoo qaad qaybtan ugu dambeeya raba inaad saaro marka waa ka hadda maxaa dhacay waa isku ekaayeen sawirka ugu dambeeyo waxaan u isticmaalay habka loo yaqaan format painter marka qaybta ugu dambeysa loo yaqaan format painter shaqadeedu waxa ay tahay in qoraalka la isku ekaysiyo qaab ahaan iyo farta uu ku qoran yahay cabirkeedaba in loo ekaysiyo qayb kale oo aad adiga xulatay oo aad dooratay haddaba haddii aad jeceshahay qoraalkaaga qaybo kamid ah inaad far gaar ah u xulato isla markaana aad isku ekaysiiso habkan ayaad isticmaali kartaa oo loo yaqaan format painter waxaan jeclaan lahaa inaan halkan kusoo gabagabeeyo muuqaalkeena maanta oo ah cashirkeena saddexaad kana tirsanaa barashada Microsoft Word 2010 waa walaalkeen Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh